kulanti wanaagsan daawadayaal oo mar kale iyo barnaamijkeennii xog waran iyo maanta waa maalinimo sabti iyo taariikhduna ku beegan tahay 8 bisha 8 sanadka 2020 wararka aan idin heynana qaybteeda koowaad waxaa ka mid ah xildhibaanada kulaha shacabka Soomaaliya oo maanta kulan xasaasi ah leh haddaba kulankaasi maxaa looga hadlayaa weerar lagu qaaday guriga degmada Gurceel ka deganaa sarkaal ka tirsanaa Niisa madaxweynaha Soomaaliland oo geesta kula kulmay iftii sare oo ka socday Shiinaha kuwaad 200 oo qof oo ku dhintay diyaarad rakaab ah oo ku burburtay dalka India qaramada midoobay oo warbixin ka soo saartay fatahaada ka jirta gudaha Soomaaliya iyo maamulka Puntland oo shaaciyay saameyn ballaaran oo ku yeeshay cudurka COVID-19 qodobadaas iyo qodobo kale ku soo dhawaada daawadayaal fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka warbaahinta xog waran subscribe saar channelka kambalka riix si aysan kuu seegin wararkeena dambe mahadsanid mar kale kulan wanaagsan daawadayaal xildhibaanada kolaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay kulankoodii caadiga ah ay ku leeyihiin xaruntooda magaalada Muqdisho sida xal lagu wargeliyay xildhibaanada kolaha shacabka Soomaaliya ajandaha kulankan maanta xildhibaanada kolaha shacabka ayaa waxa looga hadlayaa akhrinta koowaad ee sharciga dambiyada galmada la xiriira kaas oo sidii hore loo sheegay ay meelmarintiisu ay muhiim u tahay dalka xildhibaanada kolaha shacabka Soomaaliya ayaa waxa xal loo diray fariimo loogu sheegayo inuu maanta jiro kulanka kolaha shacabka Soomaaliya waxaana lagu wadaa in goordhow xaruntooda ka furmo kulankooda caadiga ah kaas oo uga hadlayaan arrimaha la xiriira sharciga dambiyada galmada wixii warar ka soo baxana wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan markana Gurceel wararka naga soo gaaraya degmada Gurceel gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in xalay weerar loo adeegsaday bam gacmeed lagu qaaday guriga magaalada Gurceel ka deganaa Cabdullaahi Cabdi Raage oo kamid ah saraakiisha Niisa qaybta Galmudug horena uga tirsanaan jiray saraakiishii maamulka Ahlu Sunna ee deegaanadaasi ka talin jiray Cabdullaahi Cabdi Raage ayaa hore waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ciidamada Ahlu Sunna ee ku biiray dowladda Soomaaliya waxaana qarax loo adeegsaday bam gacmeed lagu weeraray guriga uu ka deganaa sarkaalka degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan hay'adda Niisa ee deegaanada Galmudug weerarkan ayaa waxa uu noqonayaa midkii ugu horeeyay ka dhaca Gurceel oo loo adeegsado bambooyin waxaana isla xalay ay ciidanka ammaanka ay bilaabeen hawlgallo amniga lagu xaqiijinayo degmada Gurceel ayaa waxay ka mid tahay deegaanada ay ku arrimin jiray maamulka Ahlu Sunna muddo 12 sano waxaana ka mid ahayd meelaha amnigeedu ugu fiican yahay markana Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi uu hogaaminayay wakiilka Shiinaha u qaabilsan iskaashiga Afrika iyo Shiinaha oo safar 3 maalmood qaatay ku tagay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ugu horeyn madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu wafdiga warbixin guud ka siiyay horumarka ka hanan qaaday deegaanada Soomaaliland oo ay iska kaashadeen shacabka iyo maamulka kaas oo sababay in beesha caalamka indhaha la raacdo kuna dhiiradaan inay maalgashadaan kheyraadka kala duwan ee deegaanada Soomaaliland ku dugan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wafdiga Shiinaha waxa uu sheegay in Soomaaliland tusaale u tahay geeska Afrika marka loo eego horumarka dhinaca dimuqraadiyadda ee ku talaabsatay Soomaaliland 29 sano ee u dambeeyay iyadoo ay ka dhaceen isbedelo dhinacyo badan leh haday tahay dhinaca doorashooyinka hanaanka asxaabta xisbiyada qaranka iyo nidaamka isku dhiibka ah ee hoggaanka Soomaaliland ugu dambeyn wafdiga ka socday dowladda Shiinaha ayaa waxa ay isku afkarteen inay yeeshaan xiriir wanaagsan oo ku dhisan ixtiraam iyo inay iska kaashadaan dhinacyada dhaqaalaha ganacsiga iyo horumarka waxaana kulanka madaxweynaha ku weelinayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici wasiirada arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah iyo horumarinta maaliyadda macdanta iyo tamarta wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah iyo wakiilka Soomaaliland u qaabilsan Shiinaha wafdigan ayaa waxaa la filayaa inay ku sii sugnaadaan magaalada Hargeysa isla markaasina ay kulamo la sii yeeshaan madaxda Soomaaliland wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan wafdiga Shiinaha ka socday ee tegay Soomaaliland inay madaxweynaha Soomaaliland kala hadleen sidii uu u jar lahaa xiriirka maamulka Taiwan ee Soomaaliland la yeelatay maamulkaasi oo ah maamul gooni istaaga oo ka tirsan dhulweynaha Shiinaha wali xog waran baad nagala socotaan ee wararkeena kale aanheena waxaa ka mid ah mas'uuliyiinta waaxda duulista hawada ee Hindiya ayaa waxay xaqiijiyeen in mid ka mid ah diyaaradaha shirkadda Air Indian Express oo ay la socdeen 191 qof oo rakaab ah ay ku burburtay garoonka diyaaradaha Calicut oo ku yaala koonfurta dalka Hindiya
diyaaradan oo kasoo duushay magaalada Dubai ayaa cagaha la weeday wadada ay ku carari lahayd ee hawayga diyaaradaha kadibna uu kala goday laba qaybood. wasiirka duulista hawada ee dalka Hindiya ayaa waxa uu xaqiijiyay in shilkaasi ay ku dhinteen 18 ruux oo ka mid yihiin laba duuliye, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay 127 ruux. dadka dhaawacmay ayaa 15 qofood oo kamid ah waxa ay ku sugan yihiin xaalad adag sida ay sheegeen laamaha caafimaadka. maamulka diyaaradaha ayaa waxa ay sheegeen tirada rakaabka ay tahay 184 ruux oo ay ku jiraan 10 caruur ah iyo 6 shaqaale diyaaradaha ayna ka mid yihiin laba duuliye. qaramada midoobay ayaa waxa ay warbixin ka soo saartay fatahaadaha ka jira gudaha Soomaaliya. daadad iyo fatahaado ay sababeen roobab ka daa Soomaaliya ayaa la sheegay inay saameeyeen ku dhawaad 191,800 oo qof oo ku nool gudaha Soomaaliya tan iyo bilihii May iyo Luulyo, taas oo ay ka dhalatay dhibaato bini'aadanimo oo ka jirta gobolada ay dhibaatadu saameysay sida ay sheegtay hay'adda OCHA. xafiiska qaramada midoobay isku dubridda arrimaha bini'aadanimada ee OCHA loo soo gaabiyo ayaa waxa ay sheegeen in dadkaasi ay barakiciyeen daadadii ay dhamaadkii bishii la soo dhaafay ka socday meelo ka mid ah Soomaaliya. meelo badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, roobabka xagaaga ah ee socda ayaa ka culus kuwii hore, ayagoo wata dabaylo xoog leh isla markaana uu heerkoodu hooseeyo. ay warbixinteeda ugu dambeysay ee daadadka ku sheegtay hay'adda OCHA. qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in meelaha daadadka iyo fatahaada ay saameeyeen ay ka mid yihiin maamulada Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. warbixintan ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in heerarka biyaha webiga Shabeelle oo loo guur karo la filayo inay sii wadaan fatahaadaha isbuucyada soo socda kadib roobabkii la saadaalinayay. OCHA ayaa waxa ay sheegtay in ku dhawaad 147,579 hektar oo dhul beereed ah ilaa 100 tuulo oo ka kala tirsan degmooyinka Balcad, Jowhar iyo Mahaday ay biyaha la tageen. warbixintani ka soo baxday hay'adda OCHA ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli maalmihii u dambeeyay fatahaado ka jireen qaar ka mid ah gobolada dalka. dhinaca kale, maamulka Jubbaland ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay khasaaraha ka dhashay roobabta weelo watay oo ku dhuftay xeebaha deegaanka Ras Kaboon iyo gobolka Jubbada Hoose. wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka maamulka Jubbaland ayaa sheegay in dabaylahaas ay ku dhinteen 9 ruux oo u badan kalluumeysato, waxaana uu sheegay in roobabka dabaylaha wataa inta badan ay dhacaan wixii ka dambeeya marka la gaaro bisha 8aad, sidoo kalena ay ku burbureen doomo kalluumeysi fara badan. waxaan ugu baaqay kalluumeysada ku nool deegaanada Jubbaland inay ka foojignaadaan dabaylaha ka dhaca xeebaha, kuwa uu sheegay inay waxyeello ku soo gaari karto. markana Puntland, wasiirka wasaaradda duulista iyo garoomada Puntland ayaa waxa uu sheegay in Puntland ay ka mid tahay maamulada uu saameynta badan u geystay cudurka COVID-19 oo caalamka dad badan ku dilay, sidoo kalena Soomaaliya laga helay kiisas fara badan. wasiirka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in laga soo bilaabo bishii Maaris oo sanadkan aysan shaqayn 3 karoon ee ku yaala deegaanada maamulka Puntland, maadaama dowladda Soomaaliya ay sabab la xiriira COVID-19 u joojisay duulimaadada caalamiga ah. waxaana uu sheegay in saameyn dhaqaale ay ka dhalatay cudurka coronavirus. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan si kala gooni waxa ay u furtay duulimaadada gudaha iyo dibadda, waxaana ay sheegtay in saameyn ballaaran oo dhinaca dhaqaalaha ay ku yeesheen xirnaashihii duulimaadada ee sababay COVID-19. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku saafmeeraynaa barnaamijkeenii xog waran iyo maanta. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka warbaahinta xog waran, subscribe saar channelka, gambaleelkana riix si aysan kuu seegin wararkeena dambe. mahadsanid.